meeshan waa tuulada Mooro-Iri waa u jeedin waa deegaamadii mar dhow la xoreeyay oo cadawga al-shabaab laga xoreeyay nabadiidka ahay si nabadgelyahan ku joogna waa arkaysiin saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan dhammaan waa joognaa meeshan waa la baabi'iyay nimanka nabadgelyada baabi'iyay wax horumar kama jiraan ceelkaas biyaha bisa ka jira oo si nabadgelyo lagu cabo marka horaatana dadka ay ku dhibaatay jiraan wax waxbarasho kama jiraan goob caafimaad kama jiraan caruurta waa taas hadda goob waxbarasho haba yaraatay ma jirto mana oo asaasno ayagana wax ma bartaan cunaqabateena in muddo haysay waxaan ka codsanayaa goob caafimaad ayaduna male haba yaraatay adiga 80 kilomitir wax noo jirta degmada Maxaas qofkii xanuunsada masa qofkii maxaan ku sheegaa umulusadii waxay jirtaa maxaan ku sheegaa qofkii haweenkii foosho waxa loo qaadaa 80 kilomitir meel noo jirta haba yaraatay meel ka sokayto umulusada joogto goob caafimaad ma jirto waxbarashana horaan uga hadlay abnigooduna boqol waayn waxaan ka codsanayaa dadka kala duwan oo amba jaalidaha mase hay'adaha mase dadka u danqana dadkii hadda dhalinyarta ahayo shabaabka soo yaryaraayo soo koray waa kuwan hadda waxay qabtaan maala marba hadii waxbarashayna aadeen waxbarashana u diyaarsaneen waxbarashada ay fahmi karin baa muddo 15 sano meeshan nimanka nabadgelyada ay ka talinayeen wadada qaadan waa la iska qiyaasi karaa haddaan laga wicino wado wanaagsan loo wicin marka soo dhawaada waxaan salaamayaa marka horeeto deegaamada hadda la xoreeyay dadka ku nool waa inay ka faa'iideystaan ciidamada ay la shaqeeyaan ciidamada qaybahooda kala duwan hadii military yihiin hadii danam yihiin hadii nabad sugid yihiin hadii gorgor yihiin ciidamada magacyada kala duwan waa inay la shaqeeyaan waa inay soo dhaweeyaan waa inay formation kala shaqeeyaan waa inay amniga kala shaqeeyaan waa inay xogta kala shaqeeyaan qaybaha kala duwan kala shaqeeyaan ciidamadii aniguna madaali doono mar kastaba waa garab taaganahay meel kasto iyo meel kasto ay joogaan waa ugu daba tageynaa hadoo la yiraahdo waxaan bogaadinayaa dadka reer Tardood dadka reer Mooro-Iri deegaamo badan oo maxaan ku sheegaa la mid ahayn ay ka wanaagsan yihiin jira sida 100% deegaamadaasna waa isgaraanayaan inay dadka dhinac istaagaan ay dantooda ka fikiraan loo baahan yahay